dhegaystayaal waa la joogo iyo meel la joogaba jacaylku waa dareen si qoto dheer ugu samaysan abuurta noolaha inta la og yahay si gaar ahna waa dareen aadanaha aada ugu laran oo tilmaamihiisa ka mid ah sidaasoo ay tahay haddana kolkaynu dib u milicsano ujeedooyinka faraha badan ee maansadii hore ee soomaalida waxaa inoo soo baxaya ujeeddada jacaylku inay ku jirto kuwa ugu tirada yar taasi waa runbiya kama dhibcaan ah oo lafagurayaasha suugaanteennu ka murankeeda ay waa horeba ka shiidaad baxeen waxayse su-aashu tahay maxaa loo aanayn karaa aragtidayda sababtu waxay la xidhiirtaa habkii nololeed ee ka jiray geyigii ay soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii soomaaliyeed ee xooloraacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay wuxuu ahaa geyi dhibaato iyo shiddo badan geyi aan nasasho laga aqoon oo halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanu kala go' lahaan jirin colaadda iyo cabsida ayaa joogto ahaa haddii habeendumo iyo haddii waaberiyo goor walbaba raggu rikaab ku joog unbuu ahaa wuxuu ahaa xilli ay si ba-an xoolaha u kala qaadi jireen kolkaas bay u ahayd mar ay geel dhacayaan iyo mar ay dhicinayaan mar ay ceel ku dirirayaan iyo mar ay carshin kala riixanayaan mar ay geedka shir ku garramayaan iyo meelo ay saymo roobaad ku hooreen mar ay geedi u yihiin haddaba ninkii soomaaliyeed ee geyiga sidaasee muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu adaday ku tilmaanaado iyo dareemadiisa qof ahaaneed inuu qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan jiljareeca iyo dabeecsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu arko lagu daraabo dhifna waxaa ahayd saygu haweenayda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeero ama meel laga arkaayo uu ku salaamo ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay ha la weheliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeen sidoo kale in doontaba ha jeclaadee waxaa iyaduna dhif ahayd carruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u saraaxo inuu si caddaana ugu sheego ama ugu muujiyo gacrada uu laabta ugu hayo ceeb aan ceebi ka weynayna waxaaba loo yiqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilma ka soo daadato sidaa daraaddeed geyiga caynkaasi ma ahayn gubaabo diradira iyo abaabul dagaal mooye geyi maaweelada iyo maansada dabacsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali karaan ha yeeshee sidaynu wada ognahay wuxuu xeer waliba waayada dambe yeeshaa cid ka baydha iskana indhatirta bulshada inteeda badani hiddaha ay raacsan tahay sidaas awgeedna waxba yaanay tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray tixa macaan badanna ku muujiyey waxaa ka mid ahaa gabadhii ijo la oran jiray gabyaagii sida aadkaa u jeclaaday dabadeedna guur iska daaye mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kari weyday kolkuu quusan waayey gabyaagii dadkii xigtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado inan kalena uu dagaanka ka raadsado gabyaagii ay u ballan qaadeen hadduu taladaa ka yeelo inay ka yarad bixin doonaan welibana ay xeryihiisa xoole uga buuxin doonaan gabyaagii markaas ugu jawaabay fardo geel lacag iyo dahab hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalinuun intuu hor fadhiisto inuu ijo la haasaawo gabyaagii ku alaladay 90 farasa xamar towlan iyo tuur caddiya maydal markab tiirsan lacag lay tirsho iyo dahab la ii tuuro lagta dabajiroo wada tifrina tiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijaan kor u tiraabaayb maansayahanadii soomaaliyeed ee qarnigii 19 hana qaaday waxaa ku jiray nin jacaylkii la soo gudboonaaday aan qarsane mar walba ku dheeraysan jiray meel walbana ka sheegi jiray waxaan u jeedaa maansayahankii weerar bulxan la oran jiray ee ay walaalaha ahaayeen gabyaagii murtida badnaa ee isagana qamaan bulxan lagu magacaabi jiray wuxuu weerar xodxotay gabar mulaaxa la yidhaahdo oo bilicsimadeedii lala ashqaraaray naagnimo ku darsatay reer qarannimo sheegtayna ka soo jeeday wuxuu isku dayey intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u mehersha markaas kadibna wixii yarad iyo xurmo xiditinimo ah isaga iyo aabbaheed ay ka wada xaaraan taasoo ay gabadhii ku diiday dabadeed gabayo aad u fara badan aadna u taya sarreeya oo suugaanta soomaalida ee jacaylka iyo xodxodada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaaxa ku afuufay waagii bariye iyo qoraxdii dhacdaba tix cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotadu u keentaa wuxuu u ballan qaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag inay dhex dabaalan doonto
dhar wada xariira dhammaan waxa dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaada ay ahaataba iyo saddexda waryahaad xoolaha ay soomaalidu dhaqato intiisa uu gabadha wax u ballan qaadayay waxa ila yaab badnaa marka uu ku leeyahay haddaad aniga i guursato inaad daabad fuushan tahay mooye weligaa dambe luga kuma socon doontid oo xataa libax baanu kuu layliyi doonaa rakuubna kaaga dhigi doonaa wuxuu kaloo ku beer laxawsaday qorax dambe iyo iyadu inaysan is arki dooninoo hadday soconaysa iyo hadday taagan tahayba lagu dulwadi doono geeda loo dalaalimeeyo oo kulaylkeeda isaga gudba wuxuu tixdaa ku yidhi lowsada carbeed iyo asliga lagu lamaaneeyey jilbad luulata hilqada soo lalmada laabta iyo qoorta 6 maraad ku kala layrsato oo laqan adeegaaya la jisiman kuraayada lukiyan rooyatada baarka lamaa dhowra laas ila xir leh oo ladada loo yeelay darma ladan furaash lagu gamco iyo 2 halo saaran lista geela caanaha kan loox labanka xaytaagan luqwi subaga loog iyo diraac gog iska laameerta lubiyad soora laashida barnida lacag la soo siiyey ludda ibilka leecaani kabash laqaya gooleedka lafayaraha aan kuu dajay iyo laanka anigoo ah mulaaxooy libaaxkay ku tahay inaanu kuu layli luga kuma gashide daabad baa kuu laxaad noqonne laan baan dalaayadin shamsada lowga kaa qabanin awal lama aqoone mulaaxo waa la wada bartay gabayadii weerar ayaa magaceedii cirka sare gaarsiiyey ruux waliba wuxuu jeclaystay bal inuu arko inantan uu gabyaagu ku naanaabay ee reerkiisii iyo haweenaydii uu qabayba iloosiisay maalintii dambe iyada oo codsiyadii aanay weli hawraarsan odhan asii ogol diidan ah ayaa waxaa isdamacsiiyey nin nuur idiinle la oran jiray oo da ahaan weerarka weynaa saatartan baa dhexdoodii ka bilowday hubka weerar waa la yaqaan oo waa gabayo iyo geeraaro ammaana oo uu inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee tolow nuur idiinle muxuu isku halaynayaa barnaamijka toddobaadka dambe soo socda ayaanu su-aasha jawaabteeda ka ogaan doonaa hadduu eebba idmo dhegaystayaal waa inoo toddobaadka dambe waxaana nagala soo xiriiri karaysaan somali@voanews.com